maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu wada dadaalo uu ku doonaya inuu dib heshiisiin ugu sameeyo beelo ku dagaalamay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Cabdiwali Cali online ayaa warka ka soo diray Shabeellada Hoose. ayadoo maalmihii u dambeeyay beelo walaalaha ay dil ku dhaxmaraysay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maamulka gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ku guuleystay inuu heshiis kala dhex dhigo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah xubnaha ku xigeenada maamulkiisa iyo maamulka degmada Walaweyn ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay degmadaas ka wadeen waan nabadeed oo ay ku doonayeen inay ku soo aftiraan colaadahaas. Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa meel fagaaraha kula hadlay maleeshiyaad qaabbeeleed ugu diridayay degmada Walaweyn waxa uu kula dardaarmay in ay ka digtoonaadaan carqaladeynta amniga. u dagaalamo meesha ma yaalaan kaliya waxa la rabaa inuu ka fikiro inuu gurigiisa xoreeyo. haddaan aniga qaldanayn aniga gurigeyga hadii la haysto wax kale oo ka hadli karo ma jiro, wax kale oo ka hadli karo ma. waxaan kale ogahay adowga gudaha la jooga ma ku kale oo meel uu ka socdo meel kale aan la garanaynin wadankan oo ku habsado waa jooga. dhammaantiina dad dhalinyarati dal kale ma qabtaan ya dalkan Soomaaliya dal aan ahayn ma liidin sheegay oo liidin yiri ayaad leediin ma jiro dalkiina kan meesha markaad dhimitid adiga aad lagugu duugi doono adigana aad ku dhalatay waalidkaaga iyo walaalaha iyo familkaaga ay ku nool yihiin halkan. waxaan rabaa marka annagoo intaas oo dhan fiirina dantii dalkeena fiirina dantii hooyooyinkiina aabbiyaashiina iyo deegaanidiinana fiirina inaad iska ilowdaan la hilmaamo wax allaala wixii idin hilmaansiinaya adow idinka soo sokeeyo oo idinkaga weyn kaas inuu jiro inaad ilowdiin al rabo taasoo ah colaad yaroo idinka dhexdiina ka dhacdo. dad hadday wax ka dhexeeyaan way dararayaan soo saas ma ya dad wax ka dhexeeya way dararayaan laba dad is haysta haddaad aragta ayagaa wax ka dhexeeyaan dad aan waxba ka dhexayn maxay isku dagaalayaan horta waxay isku dararayaan male waxba kama dhexeeyaba dadkaas. dad is haysta haddaa aragtid waxbaa ka dhexeeya dhaliyaa ka dhexeyso deegaanaa ka dhexeeyo wax wada qaybsigaa ka dhexeeyo wax walbaa ka dhexeeyo. marka dagaalka Soomaalida hadda dhexdeeda waxbaa dad ka dhexeeya in las dagaalo wax keenayana taasaa u sababa. laakiin haddii la dhaha ka hor doqon isdagaashay waxaa ugu daranaa la yidhahdaa laba istaqaano isdagaashay laba qof oo isgaranaya hadday isdagaalaan si loo kala reebo ma garanaysa. animaa hebel aniga maaragtay hebel ma ilaan hebel kuu fiirina asaga wax kale aqli kale oo hoose uu fiirinaa ma leh. laba isgaranayso oo walaaloo dhalatay hebel iyo kaa xoog badin darteed waxba ma reebanayo kan wuxuu leeyahay hebel intuu kaa xoog badin lahaa adiga dhimo. waa wixii wadankeena si u soo soconay halka hadda aan joognona keenay. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee uu horkacayo gudoomiyaha Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa gobolka ka wada horumar kala duwan waxaana maamulku uu dadaal ugu jiraa soo celinta nabadda iyo xasiloonida degmooyinka iyo deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose. Cabdiwali Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose.